ku soo dhawaada dhammaantiin mar kale casharradeennii taxanaha ahaa ee luuqadda Jarmalka. Waxaynu maanta ku jirnaa inuu ka hadlaynaa casharkeennii afraad ee aasfayga. Muuqaalkan inta aanan bilaabin waxaan qof walba u sheegayaa in aad dhamaysatid muuqaalkan ilaa iyo dhammaadka. Waxaad daqiiqado yar gudahood aad ku baran doontaa waxa ama halka uu qof kale uu sanad dhan uu ku baran lahaa glass Jarmal ah ama uu ku soo baran lahaa ayaa daqiiqado yar aad ku fahmi doontaan. Daawo muuqaalka ilaa dhammaadka. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysaan waa maxay site forman amba site. Naxwo ahaan waxaa loo yaqaanaa ama grammatic ahaan waxaa loo yaqaanaa tempoqa amba tempus. Tusaale ahaan waxaad u baahan tahay verb amba ficil, tusaale ahaan gehen iyo essen. Haddaba ficil kasta wuxuu qabtaa shaqo ama hawl u gooni ah. Tusaale ahaan ficilku kuma tusayo qofkee ama kuma wax qabanaya. Sidoo kale wuxuu ku tusinayaa goorma ayaa hawshan amba waxan la qabanayaa. Luuqadda Jarmalku waxay ka kooban tahay ama leedahay 6 site form amba tennis af English ahaan amba naxwo waqtiyeed. Waxayna kala yihiin presens 1, preteritum 2, perfect 3, plusquamperfect 4, futur 1 5, futur 2 6. Luuqadda Jarmalku waxay leedahay waqti amba goor amba site form lagaga hadlo dhacdo kasta oo dhacda. Haddaba dhacdooyinkaasi iyagoo xaalado kala duwan wata ayay u dhacaan. Tusaale ahaan haddii aad rabtid in aad qortid wax kugu soo dhacay ama aad ka sheekaysid waxaad isticmaalaysaa preteritumka oo ah shalay waxaan la joogay caasha tusaale ahaan. Amba haddii aad rabtid in aad ka hadashid wax aad qabanaysid imika oo ah presens, waxaan qabanayaa imika hawl guri. Amba wax dhici doona mustaqbalka in aad ka hadashid haddii aad rabtid. Tusaale ahaan berrito ayaan weydiin doonaa caasha waa futur 1 ama futur. Haddaba sawir guud aynu ka qaadanno 6 site form ee luuqadda Jarmalka. 3dan ayaad u baahan tahay mar kasta oo aad ka hadlaysid ama isticmaalaysid luuqadda Jarmalka. Gegenwartka oo ah wax imika dhacaya oo ah presenski, iyo wax la soo dhaafay oo ah vergangenheitki, iyo zukunftiga oo ah mustaqbalka. Haddaba markaad luuqadda Jarmalka ka hadlaysid wax la soo dhaafay waxaad isticmaalaysaa perfect, preteritum iyo plusquamperfect. Marka aad ka hadlaysid mustaqbalkana ama zukunftigana waxaad isticmaalaysaa futur 1 iyo futur 2. Aynu tusaale guud usoo qaadanno ficilka lernen. Presens wuxuu noqonayaa ich lerne. Perfect wuxuu noqonayaa ich habe gelernt. Preteritumna wuxuu noqonayaa ich lernte. Plusquamperfectna wuxuu noqonayaa ich hatte gelernt. Futur 1na wuxuu noqonayaa ich werde lernen. Futur 2na wuxuu noqon doonaa ich werde gelernt haben. Haddaba 3dan presens iyo preteritum iyo futur 1 waxaa loo yaqaanaa einfache tempora. Halka perfect iyo plusquamperfect iyo futur 2na loo yaqaano zusammengesetzte tempora. Haddaba waxaad isweydiinaysaan goorma ayaan isticmaalayaa xaaladahan waqtiyada kala duwan leh ama goorma ayaad isticmaalaysaan. Aynu ka bilowno ka u horeeya oo ah presens, waqti xaadirkan amba imika wax jooga. 6 site form mid ayaan uga hadli doonaa. Waxaan imika ka bilaabaynaa ka u horeeya oo ah presenski. Tusaale ayaynanu siinaynaa 5 kale ee harayna sidaas oo kale. Tusaale ayaan usoo qaadanaa imika ich lerne Deutsch. Waxaan imika af Jarmal. Haddaba presenska waxaa lagaga hadlaa wax imika dhacaya amba socda. Tusaale ahaan waqti xaadirkan wax hadda dhacaya oo aad imika qabanaysid oo aad ku guda jirtid amba wax soo noqnoqda. Tusaale ahaan haddaba presensku waa xaaladda ugu isticmaalka badan luuqadda Jarmalka. Gegenwart markaad imika wax imika socda ka hadlaysid waxaad leedahay ich lerne Deutsch, waxaan baranayaa af Jarmal. Amba waxaad leedahay ich lerne gerade Deutsch, waxaan imika baranayaa af Jarmal. Sidoo kale waxaad kaga hadli kartaa presenska wax jooga imikoon dhammaanayna. Tusaale ahaan der Juli hat 31 Tage. Bisha Juli waxay ka kooban tahay ama leedahay 31 cisho. Sidoo kale
marka waxaad kaga hadli kartaa wax mustaqbalka dhacaya. Future maaha eins laakiin present-kana waa lagaga hadlaa sidoo kale adigoo leh ich lerne nächstes Jahr Deutsch, waxaan baranayaa sanadka soo socda Jarmal. Amba waxaad odhan kartaa morgen gehe ich wieder in die Schule, aroorta waxaan tegayaa iskoolkii mar kale. haddaba conjugationkiisa ama markaad conjugate garanaysid qaabkan ayuu u dhacayaa ama sidan ayuu u dhacayaa. halkaasaan kaga soo gudubnay Beresenis. iminkana waxaynu ka hadlaynaa ka labaad oo ah Bereteritum. Ich lernte Deutsch, waxaan soo bartay af Jarmal. haddaba waa maxay Bereteritum? aynu eegno. Bereteritumku waxaa loo isticmaalaa wax dhacay oo dhammaaday oo waqtigiisii la soo dhaafay. amba waxaana badanaa lagu qoraa oo loo isticmaalaa sheekooyinka, warbixinada, qoraalada ayaa loo isticmaalaa. af Englishna waa simple past. Bereteritumka waxaa lagu qoraa badanaa sheekooyinka, warbixinada, wargeysyada. looma isticmaalo inta badan hadal luuqada Jarmalka. amba waxaa lagu qoraa sheekooyinkii khiyaaliga ah ee beriyihii hore dhacay. tusaale ahaan beri waxaa jiri jiray waxaas saasoo kale ayaa loo isticmaalaa. haddaba Bereteritumka marka aad warqad qoraysid amba aad qoraal qoraysid oo aad rabtid in aad tiraahdid waxaan soo bartay af Jarmal, waxaad leedahay ich lernte Deutsch, waxaan soo bartay af Jarmal. sidoo kale haddii aad rabtid inaad tiraahdid waxaan cunay tufaax, ich aß einen Apfel. sidoo kale haddii aad qoraysid sheeko amba warqad ahaan aad u qoraysid sheekooyinkii khiyaaliga la isticmaali jiray, waxaad leedahay es war einmal König, beri baa waxaa jiri jiray boqor. fa waa Vergangenheit-ka sein. haddaba Bereteritumka iyo perfectigu maxay iskaga mid ka yihiin? ich lernte Deutsch, waxaan soo bartay Jarmal. ich habe Deutsch gelernt, waxaan soo bartay Jarmal. labada waad arkaysaan af Soomaali ahaan waa isku mid. sidaas si la mid ah ayay Jarmalkana iskugu mid u yihiin. labada xaaladoodba waxay ka hadlaan wax la soo dhaafay. Bereteritumka waxaa loo isticmaalaa luuqada Jarmalka in wargeysyada iyo qoraalada lagu qoro ama warbixinada ama waxyaabaha lagu qoro, halka perfectigana loo isticmaalo hadal in lagu hadlo. labada waqtina waa Vergangenheit, waana sax. aynu eegno tusaalahan kale. Im letzten Jahr machte ich Urlaub in Somalia. sanadkii la soo dhaafay waxaan fasax ku tegay Soomaaliya. machte waxay ka timid infinitive-ka ama ficilka machen. Mit dem Fahrrad fuhr ich von Berlin bis Hamburg. tusaalayaashan kalena aynu eegno. Sie lachte ihn aus. Er saß auf der Stuhl. Wir backten viel Essen auf den Korb. Conjugationka Bereteritumkuna sidan ayuu noqonayaa. aad idinka muuqdaa isbarbardhig waxaa iska bedelay Bereseniska iyo Bereteritumka. inta badan markaad Bereteritumka jumlad dhisaysid waxaad u baahan tahay ficiladan hatte, würde, war, kam iyo kuwo kale oo badan. sidaasi ayaynu kaga soo baxnay Bereteritum. iminkana waxaynu ka hadlaynaa perfect. haddaba muxuu yahay? maxaanse u baahanahay perfectiga inaan isticmaalo? haddaba side formkan ama perfectigu wuxuu ku dhisan yahay xidhiidh ka dhaxeeya labadan ficil ee hilfisverbanka ama ficil caawiyaasha ah ee haben iyo sein iyo participe saiga. participe-ku ma bedeli doono qaabkiisa. haddaba perfectigu waa magaca loo yaqaano waqtigan. waa xilliga ugu muhiimsan ee aad u isticmaali karto hadalka. waxaa aad loogu isticmaalaa markaad ka hadlayso wax la soo dhaafay oo dhacay. tusaale ahaan ich habe Kaffee gekocht. Kaffee ayaan kariyey. ich habe gekocht. waxbaan kariyey amba waan kariyey. waa markaad wax soo karisay. ama markaad ka hadlaysid wax meel ka dhaqaaqaya amba jiho u socda amba socda waxaad isticmaashaa sein oo ah bin. ich bin gefahren. waan dhaq. aynu tusaale u soo qaadanno. ich esse eine Pizza. anigu waxaan cunayaa pizza. waa Beresenis. waa wax iminka jooga. wax la soo dhaafayna marka ay noqonayso oo ah perfect waxay noqonaysaa ich habe eine Pizza gegessen. waxaan soo cunay pizza.
sida aynu soo sheegnay markasta waxaad u baahan tahay labadan ficil caawiya ee haben iyo sein. Iminka haben ayay halkan inoo taala iyo participes faiga oo ah gegessen soo cunay. Waxaan soo cunay anigu pizza. waxaad markasta participes faiga aad ugu baahan tahay jumlada dhammaadkeeda sida gelaufen, gelernt, gegessen, gegangen. aynu tusaale u soo qaadanno saddexdan ficil ee halkan yaala: fahren, laufen, sterben, lernen. Ich habe 2 Jahre Deutsch gelernt. Er ist gestern nach Hamburg gefahren. Isagoo shalay wuxuu u socdaalay amba tegay Hamburg. Am 20. Oktober ist Abdi gestorben. 20. Oktober ayuu dhintay Abdi. Ich bin schnell gelaufen. Degdeg amba xoog ayaan u orday. Ich bin nach Berlin gefahren. waxaan u malaynayaa in aad hadda fahmi kartaan qaabka aad u isticmaalaysaan participes faiga. haddaba markaad isticmaalaysaan hilfisverben ama ficil caawiyayaashan, qaabkan ayay u shaqeeyaan. tusaale ahaan haben markaad ka hadlaysid ich habe gelernt, du hast gelernt, halka sein ay tahay ich bin gegangen, du bist gegangen. waxaan rajaynayaa iminka inaad perfect iyo präteritum kala saari karta. sidaas waxaynu ku joognaa plus quam perfect. Ich hatte Deutsch gelernt. Ich hatte Deutsch gelernt. badanaa plus quam perfectigu wuxuu sheegaa wax präteritumka hortii dhacay. aynu eegno jumladan Soomaaliga ah. shalay waxaan markii ugu horreysay isticmaalay taleefankii ee aan 2 usbuuc ka hor aan soo iibsaday. sida halkan idinka muuqata jumladani waxay sidaa 2 macluumaad aba zwei informationen. u fiirsa halkan. macluumaadka koowaad ee jumladan ay sida waa isticmaalka taleefanka. macluumaadka labaad ee jumladu sidana waa soo iibsiga taleefanka. labadan macluumaad ee jumladu haddaba sidaa isku mid miyaa? maya, ama isku mar ma aysan dhicin. xaaladee hor dhacday? taleefanka 2 usbuuc ka hor ayaad soo iibsatay. waxaadna markii ugu horreysay isticmaashay shalay. waxaa horreeyay iibsiga taleefanka, waxaana xigay isticmaalka. haddaba jumlada sidan ah inaad dhistid ayaad ugu baahan tahay plus quam perfect. haddaba plus quam perfectiga waxaad ugu baahan tahay keliyaata inaad kaga hadashid nur in der Vergangenheit, keliya wax la soo dhaafay, iyo in aad kaga hadashid sidoo kale wax intaa ka horreeyay dhacay sidaan hadda soo sharaxaynay oo loo yaqaano for Vergangenheit. haddaba aynu eegno jumladan. Gestern habe ich endlich die Schlüssel wiedergefunden, die ich letzte Woche verloren hatte. Verloren hatte ayaa ah plus quam perfectiga. shalay waxaan ugu dambayn helay furihii kaas oo iga lumay usbuucii lasoo dhaafay. waa taan hadda soo sharaxaynay oo kale. tusaalaha labaad: ich hatte ein Eis gegessen, bevor ich zur Schule ging. jumlada sare waxaad isbarbar dhigtaa ma waxaa horreeyay helitaanka furaha mise lumitaanka furaha ayaa horreeyay. jumlada labaadna ma waxaa horreeyay in jalaatada la cuno mise inuu iskuulka tago. sidaas isku barbar dhig. waa kan mar kale tusaalihii halka hore aynu af Soomaaliga kusoo sharaxaynay. Gestern habe ich zum ersten Mal das neue Handy benutzt, das ich vor 2 Wochen gekauft hatte. badanaa waxaad u isticmaashaan plus quam perfectiga nachdem. letzte Jahr konnte ich meine Ausbildung in Hamburg beginnen, nachdem ich richtig gutes Deutsch gelernt hatte. sidaas waxaynu ku joognaa futur 1. Ich werde Deutsch lernen. haddaba futur 1 isna muxuu yahay? goorma ayaase la isticmaalaa? marka aad ka hadlaysid mustaqbalka ayaad isticmaali kartaa futur 1, amba markaad ka hadlaysid qorshayaal iyo rajooyin aad leedahay mustaqbalka ayaad isticmaali kartaa. tusaale ahaan ich werde Deutsch lernen. waxaan baran doonaa af Jarmal, amba waan baran doonaa af Jarmal. waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa markaad ka hadlaysid ballanqaad. tusaale ahaan ich werde dich für immer lieben. waan ku jeclaan doonaa weligay. amba ab morgen werde ich Deutsch lernen. bari laga bilaabo Jarmal ayaan baran doonaa. sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa markaad codsi ka hadlaysid
amba aad wax codsanaysid. Willst du voll damit aufhören? Ma joojin kartaa waxaad wadid markaad leedahay ayaad isticmaali kartaa iyadana sidoo kale. Sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa markaad wax qiyaas iyo filashooyin aad ka hadlaysid. Der Zug wird schon in Hamburg angekommen sein. Tareenku wuu yimid mar horeba magaalada Hamburg. Sidoo kale waxaad ka hadli kartaa markaad wax qorsheynaysid. Ich werde nächstes Jahr nach Somalia fahren. Sanadka soo socda waxaan tegi doonaa ama u socdaali doonaa Soomaaliya. Ama waxaad isticmaali kartaa markaad wax amraysid. Tusaale, du wirst jetzt deine Zimmer aufräumen. Waa in aad nadiifisaa qolkaaga. Haddaba conjugationka werden. Werden iyaduna waa hilfisverben sida haben iyo sein. Markastood futuwa eins ama mustaqbalka ka hadlisid isticmaal werden. Sidaasi waxaynu ku joognaa futuwa zwei. Ich werde Deutsch gelernt haben. Futuwa zwei laba xaaladood waad u isticmaali kartaa. Mar mustaqbalka ayaad u isticmaali kartaa, halka dhinaca kalena aad u isticmaali kartid wax laga soo gudbay oo lasoo dhaafay vergangenheit. Tusaale ahaan, am 5. Oktober werde ich die Prüfung schon geschrieben haben. 5. Oktober marka la gaadho waxaan qori doonaa imtixaanka amba aan dhammaystiri doonaa imtixaanka. In den nächsten 2 Jahren werde ich auf jeden Fall Deutsch gelernt haben. Labada sano ee soo socda marka la gaadho waxaan hubaa inaan ku hadli doono af Jarmal. Waad fahanteen ayaan rajaynayaa. Haddaba futuwa zwei marka aad dhisaysid ama jumlad ahaan ma aha mid aad u fudud. Bal aynu eegno maxaad u baahan tahay. Haddaba markaad dhisaysid futuwa zwei waxaad u baahan tahay werden oo aynu ku soo aragnay futuwa eins, partizip zwei oo aynu ku soo aragnay perfect, iyo haben iyo sein labada ficil caawiye. Waxaad sidoo kale kaga hadli doontaa marka aad male amba wax rajaynaysid futuwa zwei. Tusaale ahaan, ilaa berri subaxa waan dhammayn doonaa nadiifinta. Waxaad dhammaysay ma aha, ma hubtid. Aanu eegno isagoo af Jarmalana, bis morgen werde ich aufgeräumt haben. Tusaalaha labaadna, ich werde bis zum Sommer mein B1-Zertifikat erreicht haben. Ilaa xagaaga waxaan noqon doonaa qof dhammaystira shahaadada B1-ska amba ku guuleysta shahaadada B1-ska. Waxaan rajaynayaa inaad dhammaantiin wax badan ka wada fahanteen haddii aad soo gaadhay ilaa dhammaadka casharka. Danke, waad mahadsan tahay inta aad daawatay ee aad muuqaalkan la socotay. Haddii aad nagu cusub tahay amba aad tahay muuqaalkan qof ku cusub, fadlan sheer garee oo la wadaag adiguna asxaabtaada jecel inay luuqadda Jarmalka bartaan. Socotid cashar kaste oon soo gelino, fadlan subscribe garee.